يدي تهي إن أي أنكر نقضاء دولة يدوينها تحديثا دولة يدوينها تحديثا قرصوركو وكمل أحبناي هاي قرياش حرد جيتا يفلتا قرصوركو وحكومة أحبناي هاي هوشي سقرصور يمام البا شرعي أوكيليا قرصوركو وحكومة الحبناية هاي هوشي سقرصور يمام البا شرعي أوكيليا أيونه كان سميا قرصوركو وحاوككو بي هاي محكمتها عادية حفيزك حراريها قود قولك السديتا من سدح قدك سرائع قرصورك هي أوليه سشائر هيئة أبوس الرئيسة معمولك قرصورك وقدك سرائع قرصورك xeerka lagu salaynayo laguna hagayo waxa soo jeedinaya xukuumadda golaha xeer dejintuna way ansixinayaan guddiga sare ee garsoorku waxa uu ka kooban yahay gudoomiyaha maxkamadda sare xeeraaliyaha guud saddex garsoore oo ka mid ah garsoorka laba garyaqaan oo bulshada laga soo xulayo saddexda garsoore ee ka tirsan garsoorka iyo labada garyaqaan ee bulshada laga soo xulay waxaa soo gudbinaya golaha xukuumadda waxaana ansixinaya golaha xeer dejinta guddiga sare ee garsoorka wuxuu u xilsaaran yahay magacaabidda شبكة فريسينتا بدلك دلعسينتا أنشحة يا أبا المريض كرسورياشا يا شقالها كلاي كرسور حير قارة أيام لقوق يحيدونا شروطها قدق السنة كرسور كو قادنا يو كرسورياشا قادية يا شقالها كلاي كرسور guddiga sare ee garsoorka waxaa lagu nidaaminayaa xeer gaar ah oo ay xukuumaddu soo jeediso golaha xeer dejintuna ansixiyo waxaa reeban in xubnaha guddiga sare ee garsoorku ay hal mar shaqada iska wada casilaan maxkamadaha racfaanka ee gobolada maxkamadaha degmooyinka waa kuwa darajada koowaad qodobka 85 maxkamadaha sare maxkamadaha caadiga ah waxaa ugu sarreysa maxkamadda sare awoodda maxkamadda sare waa qaadista dacwadaha kala ah dacwadaha laga soo qaatay racfaanka ee ka soo dhammaaday maxkamadda ama maxkamadaha racfaanka dacwadaha idaariga ah oo iyagu toos uga bilaabma maxkamadda sare fadhiga maxkamadda sare waa caasimadda AZAANIYA waxayna dacwadaha ku qaadi kartaa meel kasta oo AZAANIYA ka mid ah garsoorayaasha xubnaha ka ah maxkamadda sare waa 5 xubnood gudoomiye ku-xigeen iyo 3 garsoore magacaabista iyo xilka qaadista
gudoomiyaha maxkamadda sare waxaa soo jeedinaya golaha xukuumadda waxaana ansixinaya golaha xeerdejinta. garsoorayaasha maxkamadda sare waxay ku soo baxayaan xeerka nidaamka garsoorka. waxaa reeban in garsoorayaasha maxkamadda sare ay hal mar xilka iska wada xasilaan. qodobka 86 maxkamadaha darajada koowaad. maxkamadaha darajada koowaad waa maxkamadaha degmooyinka. waxaa ka bilowda dacwadaha nooc kasta ha ahaadeen kuwa ciqaabta iyo kuwa madaniga ah iyo arrimaha qoyska, markii laga reebo dacwadaha idaariga ah oo iyagu ka bilowda maxkamadda sare. garsoorayaashu ama qaadiyada maxkamadaha darajada koowaad waxay ku soo baxayaan xeerka nidaamka garsoorka. qodobka 87 maxkamadaha racfaanka. xarumaha maxkamadaha racfaanku waa magaalo madaxyada gobolada. maxkamadaha racfaanku waxa ay qaadaan dacwadaha racfaanka laga soo qaatay ee xukunadoodu ka soo dhamaadeen maxkamadaha darajada koowaad. awoodda maxkamadda racfaanku waxay ku eg tahay gobolkeeda. garsoorayaasha maxkamadaha racfaanku ugu yaraan waa 3 xubnood. shuruudaha xildhibaannimada ka sokow garsoorayaasha loo qaadanayo maxkamadaha racfaanku waa inay haystaan shahaado kulliyad sharci ah oo la aqoonsan yahay ama khibrad weyn oo xagga shareecada islaamka ah. qodobka 88 xeeraryaha guud. fadhiga xeeraryaha guud waa caasimadda AZAANIYA. awoodda xeeraryaha guud waxa ay ku fidsan tahay dalka AZAANIYA oo dhan. magacaabista iyo xilka qaadista xeeraryaha guud waxaa soo jeedinaya xukuumadda waxaana ogolaanaya golaha xeerdejinta. xafiiska xeeraryaha guud wuxuu ka kooban yahay xeeraryaha guud, ku-xigeenadiisa oo gobolkiiba hal ah. qodobka 89 awoodaha iyo xilalka xeeraryaha guud. xeeraryaha guud waxa uu awood gaar ah u leeyahay inuu dacwad ku oogo kagana muddaco maxkamadda sare ee dowladda maxkamadda horteeda. madaxda sare ee dowladda maxkamadda horteeda. xeeraryaha guud waxa uu u xilsaaran yahay ilaalinta ama dhowrista sharciga iyo ka hortagga dhaqan xumada. baarista, oogista iyo ku muddaca dambiyada maxkamadda. waxaa halkaas ku dhammaaday qaybtiisa koowaad ee garsoorka. waxaan rajaynayaa mikrofoonka inuu shirgudoonku ku wareego wixii wax ka dhigis ana halkaas isku weydiiyo. cabdicasiis aad iyo aad buu maad أولاً نبقى برنامج جيراني سوف نقرأ حصنينا وحان نوع إيمانيا مرتي شرف تليمانيسا إن أساسي عن مسؤول دوينا وحصنينا ما لك هيك تسبي كسعدان
dowlado kala gedisanna way ka socdaan marka in aan si fiican u soo dhaweyno marka ay soo galaan aan shacabka ku soo dhaweyno sidaas aan muxuu ahaa codsanayna waa mahadsantihiin